soomaali maxamed horta arrintan ayaa ila qabo isbuuc ka hor 5 beri ka hor waqti dhow wax la igu ag sheego yuhuud baa ugu nabcaa yuhuud magaceeda meesha aan ka maqlo shaydaan sa uga cudbilaysa si ka daran iyo horta uga cudbilaysan jiray laakiin maanta haddaa 100 jeer yuhuud sheegto haddaa 100 jeer wax alla waxaa doonto oo yuhuud aa ku dhehaysa agteeda ka sheegto innaba ha yaraate xataa wax yarna jirkayga isu bedelayo yacni hadal caadi adoo sheegay ila tahay war ilma adeeryaal oo arrinta meel xun bay gaartay war nimankii Somaliland ahaa geed la gooyo geedka ugu darnaa bay gooyeen war meel la istaaga meesha ugu xumeed bay istaageen waxaan intaan ka badan in la sii fiirsado ma ahan Soomaali maxamed kala fogaanshaheeda ilaa heerkaas ay tagto waxa dhaama inay dawlado badan noqoto kala jajarmanto inaanan dhowr wadan noqono gobol kastaba uu wadan gooni iska dhigo oo Soomaali isku magacaabo haddana uu dariskaada Soomaaliya dawlad kale Soomaali ay tahay wanaageena ku jiro yacni Soomaaliya Djibouti Somaliland laga yaabo Ethiopia mustaqbalka inay Soomaali la wareegto hadda gobol baa naga baxsadaan leena laakiin Ethiopia inay la wareegnaa dhici karto Soomaaliya oo dhan baa waxa laga yaabaa Kenya inay la wareegtaa dhici karto geeska Afrika oo dhan baa waxa laga yaabaa inay Soomaali qarniyada soo socdo ay gacanta ku dhigto waa haddaan isjeclaano waa haddaan wanaaga ka wada tashano waa haddaan isku imaano waa haddaa qof kastaba meesha u joogo qof kale uu ka warqabo laakiin haddaa ma go-aysid ilaa adigana dee ma go-aysid waxa lagu leeyahay jaceyl ay tahay weeye adigana ay kula noqoto in xaasidnimo laga hayo oo sidii u socotay aad gaartay meesha adduunka ugu darnayd iyo yuhuud hoos gashay oo calankeed intaa qaataan saa gabdhihii ee garbasaarada ka tusheen subxaana malikul quduus war adduunka intuuna nagu xumaanin ee Soomaali musiibo laga yaabo ee ku dhicin Soomaaliya xaaladda hal dejiyo hal isku imaado hal noqdo dad wada leh baan nahay dad hal meel ka wada imaaday baan nahay wiil yaabtigi baan wada nahay hal la wada tashto xasan sheekh arrintan dejiya hadho nimankan hal u yeero hal la hadlo hadho aamiiskooda halka sugu imaano war nimankan sii daaya war dawlad Soomaaliya ay leedahay oo dariskaada wax ka wanaagsan ma jiro hiil wala Djibouti oo bixiseen hiil wala labaad baa noo soo baxayo maxaa dhibaato ah hadda aniga waxaan ahaa dadka ugu daran ee adduunka u jecel Soomaaliya inay mid noqoto waxaan ahay qofka markastaba aaminsan Soomaaliya inay wan kala noqoto wan midnimadeeda ay hal noqoto laakiin maanta xaaladda meesha ay marayso markaan arkay xaalad la fiirsan kara ma aha walaalahay Soomaaliland waxaan leeyahay xaaladda dejiya saar hanoo nicina ilaa heerkaas ha gaarina war dad isla dhashay baan nahay dad qaab kasto qaraabo u ah baan nahay dad saa aan weligood kala go-ayni baan nahay dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay arrintan wax ka bedel dad aad dabada qabsato oo haddana ku sii jeesto waxa ka wanaagsan inaad walaalka kursiga la fadhiisato oo xaaladiisa iyo wixii asaga jecel yahay aad ku raacdo halkaas jecel baa ka dhalanayo isla wada soco iyo walaalnimo ayaa ka dhalanayso wabillahi tawfiiq